بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين سلامي ولا له شرفت له ولا والبقى جوجتان ومركل إيبوغي 4000 Essential English Words. عقول كده جرنا بوغي أفراد بوغي سدحات عتبكي أفراد أيامانتك بالله بدون إليه هدو إدماء. waxaan jeclaan lahaa inaan idinla socodsiiyo in markaasi buuggaani oo dhammaystiran oo PDF aan idiin soo dhigay qaybta markaasi transcription-ka oo markaasi videowahan ilaahay haddoo idmaa si tartiib ah waxaad ugala degi kartaa transcription-ka buuggaani qaybtaas ayaad kala degi kartaa isoo PDF ah. sidaas waa taas ilaahay haddoo idmaa buugga maanta saddexaad aan qaadanin wuxuu waaye markaasi cutubka afaraad waaye. waxaana qaadan doonaa markaasi page-ka oo hal page-ka ugu horeeya oo ah markaasi page-ka 26aad ayaan qaadan doonaa. page-kaas waxaa inoogu xusan 10 erey caadaaba aan qaadano. 10kaas erey ayaan qaadan doonaa. 10ka erey dambana insha Allah maanta xigta ayaan qaadan doonaa. sidaas ayaan ku wada doonaa ilaahay haddoo idmo. 10ka erey aan qaadan doonaa maanta ereyga ugu horeeya waxa uu yahay waa bloom waxa waaye markaas waa wax bixin oo wax bixinta geedka uu sameeyo ayaa waxa la yiraahdaa bloom la yiraahdaa. wax bixinta xilmuu sameeyaa geedka waxa la yiraahdaa inta badan marka uu sameynayo ama uu qaangaara waxa uu sameeyaa waxay markaasi ku tusinaysaa calaamad ah in uu markaasi reproduce oo taran uu sameey karo wax uu soo saari karo. xiligaas waxa uu sameeyaa flowers ubaxyo ayuu sameeyaa. flowers ubaxyadaas uu sameeynaa ayaa waxa la yiraahdaa bloom la yiraahdaa. marka ereyga bloom macnaheedu waxa waaye ubax bixin ayaa la yiraahdaa bloom. intaanka haddii aanu fiirino waxa le markaasi when a plant markay dheeri bloom ay ubax bixinayso it makes waxa ay sameysaa flowers ubaxyo ay sameysaa. tusaale waxa le the roses ubaxyadu look waxay u egyihiin so pretty kuwa qurux badan markaasi ama aad u qurux badan when they bloom markay markaasi dhalanayaan ama ay ubax bixin ay sameynayaan. compact ereygan compact waxa waa is haysta oo markaasi dhammaan wada socda ayaa waxa la yiraahdaa compact. qeexitaanku waxa leeyahay markaas if something hadii shay is uu yahay compact mid is wada haysta it shaygaasi smaller than normal waxa uu ka yaryahay markaas shayga caadiga ah. computerka laptopka liire is a much more compact waxa uu markaasi iska haystaa oo wada socda dan disk model nooca la yiraahdo desktopka ayuu wada socda. sababtoo ah desktopka isma haysto waxa waaye waxa uu leeyahay keyboard uu leeyahay markaasi waxa uu leeyahay disk ayuu leeyahay waxa uu leeyahay markaasi mouse ayuu leeyahay waxa uu leeyahay sidoo kale geedka la yiraahdo system ayuu leeyahay. intaas waaye isma wada haysto waa kala qayb badan yahay laakiin laptopka waxa waaye compact waa uu iswada haystaa. ereyga xiga waxa leeyahay markaas ereyga xiga curly waa marmarooran ama markaasi duuduuban ayaa waxa la yiraahdaa curly macnaheedu waxa waaye shay duuduuban ama marmarooran waxa la yiraahdaa curly. qeexitaanku waxa leeyahay curly shayga marooran ama duubani is a small piece waa gobol markaasi yar of something a shay with kaasoo around shape muuqaal ahaan markaasi u wareegsan. ereyga markaasi tusaalihiis waxa la yiraahdaa the colorful ribbons jaax maro oo markaasi kalar badan ayaa weerbenti into the carles ayaa waxa markaasi loo qalqaloociyay carle marmaroor ayaa loo sameeyay. ereyga xiga waxa waa decay waxa la yiraahdaa markaasi waa qurmid ama halaabid ayaa waxa la yiraahdaa decay. to decay halaabistu is to be destroyed waa in shaygaani uu markaasi burburaa natural caadi ahaan inuu burburaa ayaa waxa la yiraahdaa decay. qofka bini'aadamka ah marka uu dhinto ee qabriga la geeyo isla markii qabriga la geeyo waxa ku bilaabanaya decay-ga ayaa ku bilaabanaya burburka ku bilaabanaya 100 sano marka uu jirsadana qofka dhammaan waxa burburaayo jirkiisii oo dhammaan. marka decay nidaamkaas la yiraahdaa. tusaale waxa leeyahay markaasi the old wooden markaasi alwaaxi duuga ahaa the old wooden house andahane gurigii alwaax ka sameysna oo qadiimka ahaa wuxuu yahay markaasi slowly decayed mid markaasi in yar markaasi u qurmaayo ama u halaabayo. ereyga xiga waxa uu yahay markaasi waa dessert waa macmacaankaas oo si kaafihiis ama loo cuno ama dhereg dhacsi ama loo cuno ayaa waxa la yiraahdaa dessert.
macmacaanka inta badanaa raashinka kadib la cuno ayaa waxaa la yidhaahdaa dessert. qeexitaanka waxaa leeyahay dessert macmacaanka is sweet foods waa cunooyin macmacaan dad kuwaasoo you eat aad cuntaa after a meal cunada kadib. haye gabadha la yiraahdo Kayla once waxay rabtay ice cream gelato for dessert inay u cunto markaas faakiis ahaan maadaama raashin ay cuntay faakiis ahaan gelato iyo geeda la yiraahdo shukulaatada iyo xanjada iyo waxyaabahaas oo idil wax allaal wixii raashinka caadiyan la cuno ka dambeeya ay aad isticmaashaa dessert la yiraahdo. ereyga xiga waxa waa dib waxaa laga wadaa macnihiisu waxa waa dhexdirid ama biyo ama dareere shay inaad dhexgelisaa ayaa waxa la yiraahdaa dib la yiraahdaa. sidoo kale dadku waxay u yaqaaneen tiimbin waa la yiraahdaa shay oo markaas dareere inaad shay kala dhexgelisaa waxa la yiraahdaa iyada markaas dhexdirid waaye. waayahay tusaale waxaa inooga filan maraqii canjeerada markii la isku cunayo kale qofka waxa uu sameeynaya canjeeradu soo goosana kadib wuxuu sameeynaa waxa uu la aada marqa ayuu la aada aadintaas la aaday sidoo aad marqa markaasi dhexgelinaysid ayaa waxa la yiraahdaa dip la yiraahdaa. to dip something shay inaad markaasi dhexgelisaa waxa la yiraahdaa but waa inaad dhigtaa part of it gabal kamid ah shaygii into the liquid dareere inaad geliso for a short time wax yarna aad ku haysaa intaas ayaa waxa la yiraahdaa dip dhexgelid. tusaale waxa la yiri Laurel gabadha la yiraahdo dibet waxa ay dhex gelisay heer strawberry-geed waxay dhex gelisay strawberry-geed waxay dhex gelisay inta shukulaato ayay dhex gelisay shukulaato ayay dhex gashatay ee liira markaasi shukulaato ayay strawberry-geed intay qabatay shukulaato ku darsatay waa maana ay ku cuntay. ereyga xiga waxa waa distant waa misaafo qeexitaanka waxa leeyahay if something hadii shay is u yahay distant mid misaafo jiro it shaygaas is a far away waa mid fog ay leeyahay. meesha ninka la yiraahdo could barely wax uu si geesinimo male si uu u arki karaa the distant misaafaha Iceland ay jirta markaasi jasiirada. eclipse waxa waaye waa qorax madoobaad ama dayax madoobaad ayaa waxa la yiraahdaa eclipse qorax madoobaadkiisa an occasion waa munaasabad when markaasoo the moon dayaxu moves uu ku dhaqaaqa in front of the sun qoraxda horteedan uu dhaqaaqa waa markaasi isku beegmaan labadooda saas waa la jeedaa leeyahay. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay markaasi waa calaamad kamid ah calaamadaheega oo markaasi loo garto ayuu leeyahay xilliga qorax madoobaadka Allah subhanahu wa ta'ala ayaan rumaysanayna. tusaale waxa la yiri a complete eclipse qorax madoobaad dhameystiran ayaa of the sun qoraxda ayay markaasi sameeysaa is a very rare occurrence. a complete eclipse waxa la yiri qorax madoobaad dhameystiran of the sun ee qoraxda sameeysaa is a very rare occurrence waa mid markaasi dhaca markaasi dhif iyo naadir u dhaca. sababtoo ah waxa uu yiri inta badana qorax madoobaadka markuu dhacay half ama wax yar ay qoraxda ay sameeysaa in eclipse-gaas uu dhaco laakiin gibi ahaan inuu dhaca waa wax markaas waxa la yiri dhif iyo naadir ah. very waa cirfiid cirfiidan naagta ayaa waxa la yiraahdaa very cirfiid la yiraahdaa wiilba qurux badan ayaa very la yiraahdaa waa cirfiid. monster haddii aad aragto waa midka ninka oo foolka xun oo aad u weyn oo markaas monster la yiraahdo cirfiid aan jinni amarna waa la yiraahdaa laakiin kan hadda monster kan waxa waa cirfiidan waa mid oo lab oo dhidig ah waaye oo aadna u yar garban la yiraahdaa. Allah subhanahu wa ta'ala inay jiraan laakiin waa iska mala awaalun after waxa la very is a small waa shay yar magic creature markaasi makhluuq markaasi mucjisa with wings hadana leh garba leh ayaa leeyahay. su'aalaha waxa leeyahay there are waxa jiro usually various cirfiidyo markaasi badana ayaa jiro in fantasy stories ee ku qoran sheekooyinka qiyaaliga ku qoran ayaa jiro. ereyga ugu dambeeya ereyadayna maanta aan qaadin waxa waaye grace bilicsan ama qurxan ayaa waxa la yiraahdaa grace la yiraahdaa. grace waxa lagu macnay marka is equality waxa waaye waa tayada of moving aad ugu dhaqaaqaysa in smooth si xaraga leh relaxed isdajiyay an attractive way iyo hab markaas soo jiidasho leh. qofka markuu ciyaarayo habka uu sameeynayo ciyaarta uu sameeynayo ee qurux badan ayaa grace la yiraahdaa. qurux ama markaas bilic nidaamkaas la joogo ee quruxda jirka ma ahan ee habka uu sameeynayo
dhaqdhaqaaqa iyo markaas habab soo jiidasho leh oo ciyaartaas qoob ciyaarta u sameynaa ayaa grace la yiraahdaa. Grace macnaha bilic qurux waaye, laakiin ciyaar ahaan markii ay timaado, laakiin qof jireed ama markaas muuqaaleed grace looma isticmaala. tusaale waxaa leeyahay ballerina gabadha la yiraahdo dancing waxay u ciyaartay with grace, si qurux badan ayay u ciyaartay. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa cashirkeeni maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام